الله سنين وهالامية الأفعال ومسكلها ابن مالك صاحب الألفية كتاب قاسي ومنظومة قبل يتح كصابسان علم الصرفقة وحكا كوبان تهي بقول يفتواني أفربي حق أبوابتنا وشان باب أما وصدح يطبان باب مركب فصوشة يلغدره مقعد واللامية الأفعال وحلامية اللغو بحيي meesha ay ku gabagabowday iyo qaafiyada qaybteeda dambeetaan baa waxay noqotaa la alhamdulillah la abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihi al-amala laadaasi marka ku wada jirto wada socota laamiye marka saasa loogu bixiyay al-af'aal waxa loogu bixiyay waa min baab at-taghlib wa asmaada iyo af'aashaba uu ka hadlay af'aasha qaybo kamida iyo asmaada qaybo kamida laakiin waxa af'aasha loogu magac daray ومن باب التغليب وحياله بدن وافعال وكهضه marka dan ka fiirisa islaadahay afcaasha sidoo uga hadlay asmaada afcaasha ayaa ku badan mandoomadu marka waa sidaas waa wax yar 14 iyo 100 iyo abwaabta yar yar ka kooban iyo baxarka ay ku socoto baxrul basiid culimada u yaqaanaan baxrul basiid bay u yaqaanaan baxarka ay ku socoto sheekha kitaabkan iskalena kitaabo badan buu leeyahay الفيها كمدة كتاب كسو جابيه بكمدة الكافية الشافية نبيال بدن بوليه قبل يكتريه ممدود كإيه مهموز كإيه وكتريه مقصور كه صرف في جلفت الكيسة كتابه وكقريبة شره بيدت كوتريه قبل يس اللغة يقصف سن قراءات كمركلة جمعية طبعا نكون بجاري عن بعلماء الشيعان مركوا كتاب هذا قيمة بدن شروح بدن عليه هذا نعرف بدن شروح يسوي في عن واحد كم شرح أول كيس صاري بدر الدين يا سيف الدين يا تغي الدين ولاش يسكم ده هاين صدق لنا محمد الأورنجي وضيق محمد الأورنجي وضيق هو محمد بلكي ومحمد صدق يقول أورالنا ومحمد محمد ابن محمد محمد ابن محمد محمد ابن محمد بدنا قرية مرك وحنا آخرين دونا مرك أبيضة هي شرح أول كيس صاري لبضوا وانا آخرين دونا شروح بدنا كل كتاب كلية هي سيدا نكلا يرى بحرق لما شرح بكله هو بحر الكبير يا بحر الصغير رجع شرح واحد كمده علوم الصوماليات بكمده شيخ أبو بكر ما لنا قريته شرح أساري وفي عنيه هي واحد قالوا في عن أسونا وذات كان سكرنات الجواهر كه الفاضة في الفريطان كذا قواعد بدن بلوه أسونا وفي عنيه هي شرح كلنا ويجتاي أيضا نافعة marka waxa roon ardaygu kitaabka matnigiisa inuu awooda saaro sharax badan hadaa isku mashquulisid waa ka baahaya wadna ku wareeri laakiin matniga lagu laqmeeyay iyo wixii qaacidaha lagu saaray hadaa isku daydid ayada inaad koobtid hadhow marka ayada faahantid tilaabo kale waa ku dari doontaa waxaan jeclahay marka maanta ito 10 inuu noqdo laba qaybood al-mabaadi wal-10 culimadu ay ka hadlaan markay funuun iyo fanni kamida funuunaha la daraasaynayo al-mabaadi wal-10 ay ka hadlaan طبعا شيء وقفك ربا فني إنه دراسية إلى جمارمان هاي طبعا كشيء إنه يقانه هو قرني كتاب آخر سنة يسمى علامية الأفعال حكها الله إياه وين تقانه قرنيسي طبعا كشيء هي مقدمة عن ما توحي كشيء دونا إن شاء الله تعالى أبيض وانقاضي دونا وتقدم قاضي سان وأكون حفظنا إنسان سيدا إن شاء الله تعالى لحني واسكسر دونا مبادئ العشرات اسمك كو حنقبل بينا ما علم لبرنا علمي مركز برنيس علمي waxa laga maarmaan inaad baratid ismuhu kitaabkan aad akhrisanaysid waa maxay waa sarf علمي aad baranaysid wuxuu yahay cilmu sarf marka ismuhu waxa weeye waa as-sarf aw at-tasrif as-sarf aw at-tasrif magacaas uu leeyahay cilmiga cilmu sarf ama cilmu at-tasrif horta taas waa xaga magac magaciibaynu niri الصرف مع على بعض التصريف واسكمت الصرف والتصريف ولا مصدر هذا على بعض وحده حد بليه هي قيحت والصرف محل لها مقع هذا قلت مقع وصرف قيحتان كسمحوي قيحتان كمركه وحو قيسما لغة واصطلاحا حده لغة مطلق التغيير والتحويل مطلق التغيير وغين والتحويل مطلق التغيير والتحويل
macnaheedu waa maxay sarfiga luqa ahaan waxaa lagu yidhaahdaa marka luqa ahaan laga hadlayo mutlaqu taqyiir waa isbedelid doorsoon baan uu isbedelay sarafa allahu riyaaxa ilaahay baa dabaylihii gedgediyey kadalika nusarifu alaayaat tasriif marka waa gedgedin mutlaqu taqyiir wa taxwiil luqatan marka waa ogaatay mar haddaad luqatan ogaatay maxaa lagu yidhaahdaa istilaaxan oo culimmadu istilaaxa u yaqaanaan istilaaxa culimmadu waxay u yaqaanaan cilmun yubxathu fiihi siyaq alkalimaati alcarabiya siyaq oo saad iyo ya iyo dayn ah siyaq alkalimaat alcarabiya التي ليست بإعراب ولا بناء التي ليست بإعراب ولا بناء كالصحة وصادة كالصحة والإعلال والوضطة والإعلال والأصالة وصادة والأصالة والزيادة حضرتين هالكاس علم يبحث فيه صيغ الكلمات العربية صح وينتاس ما قام مسألة هذا هيسان طبعاً لماذا محيين عيسى يحد كيسة وولي اللغة وسلاحنا كذا لسوما مسألة صدحات وان كهلا لنا وحوي موضوعه كهلا محيط الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة وصادة الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة صاد المتصرفة هذا هيسان الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة صدح هيسان أفراد وحويه حكم كيس إن لبرتمام حكم كيس علميان إن لبرتام حيث حكم تعلمه إن لبرت حكم كذا حويه واجبة مصنع مستحبة ومكروه محرام حكمه واجب كفائي عن كل فن عن كل ناحية من الفنون وعيني على قارئ التفسير والحديث على قارئ التفسير والحديث على قارئ التفسير والحديث أغاب سلاد هيسا شناد وحاويه واضعه يا دجيه هرت علميان عدة دجسي ييتها واضعه معاذ ابن مسلم الهراء
معاذ بن مسلم الهراء. غايته واللحاد وغين ألف كتابين غايته وشدد يقول كلامه غايته صون اللسان صون أو صاد صون اللسان عن الخطأ صون اللسان عن الخطأ والاستعانة على فهم كلام الله ورسوله. والاستعانة على فهم كلام الله ورسوله. مقام السلام مريسان تضبط وحويه استمداده من كلام العرب استمداده دورته من كلام العرب خذوا غريسة بس استمداده من كلام العرب. مقام مريسان سيديد وحوية نسبته التباين من حيث لا يدخل تحت أي فن من الفنون. ما قال مريسان سقالا فضله من أعظم وأجل علوم العربية وأنفعها ثلاثة هيسان مدى الطماط وهي الأخيرة. مسائله تحويل الأصل الواحد تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. طبعا مثلا ما هيسان طبعا مثلا وحير دول استاجنا مركه إنكم رالي ميدا كوبادا ugu horeysa waliba mid ugu dambaysa fiiha nadar insha Allah taala mar dambaan noqon doonaa. Sanada ugu horeysa waxa weeye cilmigan akhrisanayna waxa la yiraahdaa cilmu sarfi magaciisu waa kaas cilmu nahwu ma aha qiraa'at ma aha fiqh ma aha magacaas leeyahay magaciisu waa cilmu sarfi. Sanada labaad waxa weeye xadkeeda iyo qeexitaankeeda. sanada marka lagu qeexo waxaan waa masjid
waxaad ogaanaysaa masjid marka lagu yiri guri dad leeyahay oo kaleeto inaysan ahayn marka qeexitaankiisu waxa weeye laba qaybood buu qaybsan luqatan wa silaahan xagga luqa ahaan waa mutlaqu tagyiir wa tahwiil in la itlaaqo isbedelid tahwiil wareejin iyo tagyiir isbedelid ah غير يغير تغيير تحويل ووريجين شيء لو وريج سي او هذا لو وريجين يا سي لو وريجين حق اصطلاح marka loo yimaado waa cilmigaas oo yubxathu fihi dhaxdiisa lagu baaro lagu daraaseeyo aan siyaqil kalimaati kalimooyinkii qaababkooda iyo siiqadooda iyo kayfiyadooda al-arabiyati arabiga waxa lagu baarayaa waa siiqooyinka kalimaadka arabiga kow allati laysat bi'iraabin taasoo i'raab ahayn آخر الكلمة يوحيالها سكهل لميس ولا بناء بنانا معها ولا أرمها هي شيء عن إعراب يوحس مله لقاها لماي التي ليست بإعراب ولا بناء حيك على شاء وحيك على كالصحة إن لي هذا الفعل كانوا ما حنوسية هي مسوا معلول كالصحة حاجة في يوبيد دخل حرف علكم مشره ضرب حرف علكم مشره والإعلال يحق علين إن لي هذا اسم كانوا واسم معلول عليسن الذي حديث كما هو الأورنجري هبل باكوجره أما هو منكر أما هو شاذ وعلة لغوية وليه هي قال وكلت أصل كذا قولوا أهايو لحظة وحو كجرين يهوو وإن الداوية مركز قال لكينيا باع لكينيا طال وحو أصل طولة قال لكينيا مركز وإعلالين مركز كلمة دي للداويني علاجين كالصحة والإعلال يوال أصالة إن لي كلمة دانو ما أصل به أصل محل يرهدا زيادة محل يرهدا وكهذا دونا مركان قال كلمة أنا كلمة أصلا بسوى كلمة زيادة يوز زيادة حيالا نوع عسى كهذا وذات هذا كلمة ده صدح محل كل شيء موضوع وكهالله علمي عن صرفه ولا بقي بودو كلئة الأسماء المتمكنة أسماء هذا اسم لماذا مكن سطي أسماء هذا لو قيب سنتي اسم متمكن يا اسم غير متمكن اسم نمدي صلى الله به هو متمكن يا اسم نمدي صلى الله به متمكن هاي مركا أسماء ذا كهذا شصرف ولا جهله الأسماء المتمكنة أسماء ذا اسم نمدي مكن سطي صل خير يا والأفعال المتصرفة أفعاش قد أنت أفعاش على موقف سنتو هو جامد ما قد ما وفعل كليس مضارع كده هدي له يرى هذا مضارع ماله ولقي وليس يليس أورن ميس أمر كان لس ما جرت مركب واحد ويه أفعاش قد أنتم متصرفة ضربة يضرب مضارع باكايمان أمر كباكايمان يضرب مصدر كباكايمان ضربا وحكى إيمان اسمه فاعل ضارب وحكى إيمان اسمه مفعول مضروب وحيالها نوع عصقلها ساوجد قدومة أفعاش نوع عصقلها أيوه كهلا يا موضوع سكو سافسين هاكل حاجة حكم كإن لبرت علمك صرف يا محي لبا الله كلا قاضي يا يقف كي علوم تاكلا ربا إنه برته وقالوين تاكلا ربا إنه برته حالي فرد الكفاية بكون غنية لكن قف كي هذا القرآن إله بان آخرنا يضو آخرنا وتفسير بان آخرنا يقف كي هذا حديث كنبي عن ذاتك هو آخرنا وحواجب عيني يقوى ولا مرمانا إنه فاني عن كرنا sababtu waxa weeye qofku markuu tafsiirka akhrinaya macnaheedu waa mutarjim aayadan maqsuudka ilaahay kaleeyahay waa sida aan ku sheegay buu leeyahay hadii marka aayadii macnaheedu aad khaladid oo biniyadi kelmada aad khaladid oo biniyadi xadiidka aad khaladid dibata ku soo wajahayso ku soo gaarayso dimadaada waxa weeyaan ma aha bari waa lagu haystaa fardul ayn marka waxa ku qofka daraasaynaya kitaabka ilaahay oo dadka waa akhrinaya iyo qofka xadiidka akhrinaya inuu faniga iska meel iska saaro isaga iyo luqad iyo kale to qaybihi kale to loo baahnaa marka qofka quraanka iyo xadiidka dadka u akhrinaya labadaas uu ku waajib ayni awliba ayni waxa ku xiga waadi'ada cilmigan sarfiga waa kuma waxaan sheegnay Muaad ibn Muslim al-Harra ayaa la yiraahdaa culimada gobolkooda waxay leeyihiin Abu Asad ad-Du'ali qaybina waxay leeyihiin Ali ibn Abi Talib baa dajiyay isdiid maayaan marka waaga hore tasarfigu wuxuu kamid ahaa naxwadu ka tirsanaan jiray culimadu leeyahay fani gooni mustaqil oo ama ahayn laakiin ninkan wuxuu bilaabay inuu ka dhigo maada gooni u taagan oo goonida loo daraaseeyo sidaas marka loogu tiiriyay laakiin waa laga horeeyay asaga waduucda jeewaakaas waxa ku xig ujeedada loo baranayaa qofka muslimka ah oo saaka sarfiga baranaya waa fadhida hadda waqti baa ka baxaya
sarfigan maanta maxaad u baranaysaa laba mas'ala ugu muhiimsan kow carabkaaga inaad laxniga ka ilaalisid oo haddaad luqadii si fiican u garanaysid wixii kaa khaldan iyo wixii kale waa fahmaysaa Soomaalidu hadda waxay keenaan wax la yiraahdo hebel waa sujuud maxaa dhacay Soomaaliga ma yaqaan ku leeyahay Soomaaliga ma yaqaan adoo ma taqaan anigu aqaan ku leeyahay sifac ma Soomaaliga waa aqaan malaha soo wuxuu ka wada waa sujuud sarfiga ba ka maqan miya garan ma isaas kooda ma iyo naxwada luqada ilaana luqad walba waxay leedahay grammar iyo luqad waxay leedahay naxwo iyo aalad marka culumadii waxay yiraahdeen laba shay baa laga maarmaana in laga faa'iido kow sawnu lisaani carabkaaga waxa ka dhowraysaa laxniga hadal wanaagsan oo isku aadan baad ku hadlaysaa waa mid labaad waxaad u kaalmaysanaysaa wal isti'aanatu ala fahmi kalaam ilaahi kalaamkiisa fahmkiisa u kaalmaysanaysaa kalaamka ilaahi saad u fahmay iyo kalaamka rasuulka sallallahu alayhi wasallam faa'iido wax labada fahamkooda kugu kaalmaynaya waa shay cajiib sida awgeed wax yar hadda sarfiga hadda inuu guda galo baabka ugu horeeya kitaabka quraanka la soo baxay wana samayn doona markaan baabka ugu horeeya galo oo sarfiga maalin walbeeta kitaab quraan aan horta soo dhiganayna meesha haye waa la akhrin bug baa loo akhrinaya casharka aan soo maray maxaa kaga jira facala facuula maxaa kaga jira waa tif bayna ka tahay meel kale lagama keenin quraanka laga keenay asaga asal ah marka kalaamka ilaahay kalaamka rasuulka aad u kaalmaysanaysa maxaa ku xigay xagee laga soo dhuxul qaato laga keeno cilmigan xagee laga soo guuriyo laga keeno waa kalaamka carabeed fusaxadii dadkii carabeed kalaamkoodii baa laga keenay meel kale lagama keeno luqad kale ajnabiya ma aha maxaa ku xigay marka loo aaneeyo culumta kale nisbatuhu ila al-ulum al-ukhra culumta kale marka loo fiiriyo asaga la isbar barigo maxaa ka dhaxay at-tabayun wa takhaluf culumta kale asaga waxba iskama gelin maxaa laga wadaa min haythu ma la yadkhulu usangalin تحت أي فن من الفنون فنون تكمل هذا ودح قال يقول لي فن جالس كمل يلا ما أعرفه معناها أهم حاجة وضع صرف هذا برانس صرف وفقه كما ترسنا وكمل حبناي حديث كما ترسنا وكمل حبناي بلاغة كما ترسنا وكمل حبناي أدب كما ترسنا وكمل حبناي واللغة هذا مستقل وهو تاجون وفنون تكلم هوس العربي يسجد مركا الغرب فنون تكلم ما هو صقل مركا سداسوي مسائش لقاها الله هيو ومسائش وكسافسيه كلمة عربية هذا الصيغة هذا عنصوش هي فضل الصماه فضله وحويه ومن أعظم وأجل العلوم العربية علوم عربية شيء هو وين بكتير أو اللي بقولنا عفوا بدن لأن ذات هذه الكلمة اللي دوينية أول كبار لقصة لسين أوسط كبار لقصة لسين قبل آخر كبار لقصة دوين كلمة دي يسوقها آدم بعد جنوبك أنت وبرتيد آخر كردق يهوستق يكردق واحد كسر يسوق ذا marka waa culum aad u nacfi badan weeyaan wadaad waxaan maalin hor fariisay gaarisa akhrinahay dhowr darsi baan ka soo xadar khayr Allah siiyo marka wuxuu leeyahay markaad rabto qofka inaad ogaatid inuu yaqaan sarfiga waxaad dhageysataa oran jiray khudabkiisa iyo dhageyso wali waxaad ka dhageysataa oran jiray masaadirta iyo markuu isticmaalayo oran jiray aslan ma aha inaad qofka khudbadiisa u dhageysatid iyo darsigu akhrinayo maadadan ma yaqaanaa inaad isku mashquulisid waa lugooyo wey marka waxa la rabaa qofku inuu maadada Ilaahay darti u baranayo وهو مركا إنه تاي أعظم العلوم إنه كمية والله برضه وهو نعفق بدن بكمية مسائش لقاها الله وكتاب كانوا كسب سيئة والصرفي مسائش السيئة وأصل كواحد كهوا واحد لقيا بين لول اللي حيو لو صميو ولول اللي حيو أمثلة صار يال مختلفة وكل دوب بدل اللي هنيسه mararka qaarkood waxbaad ka goyn mararka qaarkood waxa way waxbaad ku ziyaadin mararka qaarkood waxbaad ka xadfaysaa sidaas ku sameeysaa tobanka mas'ala marka in la bartaayo waa muhiim tobanka mas'ala markaan ogaanay oo cilmiga sarfiga oo sarfi maxalliga luqatan wa silaahan waan ogaanay xageebu ka yimid oo yaa dajiyay aan u nimaana marka kitaabka aan rabnaa inaan akhrisano wax yar waxaan ku bilaabaynaa sharaxa wiilka bismillaahir rahmaanir rahiim saxda qaybaan bisinka ba qorayn qaybina way qorayaan bismillaahi ilaahi magaciisa ku bilaabanaya kitaabkan asaga ilaahi magaciisa ayaan kitaabkan ku bilaabaya allahi ar-rahmaan naxariista guud ahaan naxariisanayo khalqigiisa gaarsiinayay allahi ar-rahiim naxariista gaar ahaaneed naxariisanayo muslimiinta iyo muuminiinta gooni ugu naxariisanayay qaala sheekhu wuxuu yiri intaan ilaa qaala sheekhu laga bilaabo ilaa muqaddimada wax yar ka hor dibaaj weeyaan oo ardadii sheekha ayaa iskala sheekhuna male wiilkiisuna male
culimaduna waxay u daliishadaan inuusan sheekha iyo wiilkiisu midna lahayn awsaafta noocaasa inuu qof isku tilmaamo baa xoogaa aan dhaqanka culimada lagu yaqaanay ahayn qaala shaykhu shaykhii wuxuu yidhi shaykhii alimaamu ee imaamka ahaa imaamka waxaa la yidhaha qofka lagu daydo ama khayr ha looga daydo ama shar ha looga daydo imaamkii alcallaamatu aqoon badanaha ahaa sheekh yamani baaba waxaa ka dhagaystay darsi uu akrinayay oo mulxa marka amhilatu lmubaalagu macnaynayay facaal oo kaleeta callaama oo kaleeta wuxuu ku macnayaa marka callaama sii cilmi badane wuxuu ku tacliiliyay marka facaal ayada laftirkeedaaba awal waxay ahayd mubaalagu ta'daan markii lagu sii daray ayadii baa mubaalago kale haddana keenaysa inaad meeshii hore taagnaatid maaha macno kale waa inaad keento tiraahdo marka callaamatu sii cilmi badane awal maxaad oran jirtay callaamatu aqoon badane ta baad ku dartay sii aqoon badane waa inaad keentay waa milxu darsi baan u malaynahaya waa naashnaash fiican alcallaamatu marka aqoon badanaha ahaa badruddiin diinta dayaxeedii ah waa laqab wiilku uu leeyahay waa wiilkii odaygu uu dhalay weeye ibnu maalik ah badruddiin kunyadiisuna badruddiin laqabkiisuna badruddiin uu ahaa ama badruddiin diinta dayaxeedii ah ayuu iftiiminayay muxammadun muxamed ahaa qaala shaykhu alcallaamatu badruddiini diinta waxa weeyaan kii qurxinahayo dayaxa u ahaa muxammadun muxamed ahaa muxamedkii ibnu shaykhi shaykha waxa weeyaan wiilkiisa ahaa shaykhii alcallaamati aqoon badanaha ahaa shaykhii jamaaliddiini ay mujamiliddiini diinta kii qurxinayay ahaa abi cabdillaahi cabdillaahi aabihiisa ahaa ibni cabdillaahi ibni maalikin wiilka laftirkiisa kunyadiisa abu cabdillaahi baa la yidhahdaa nuskhadaydu ii qori mayso nuskha qayb baa laga yaabaa inay qorayaan qaala shaykhu alimaamu alcallaamatu abuu halkaa nuskhda qayb baa gelisa abu cabdillaahi wiilka kunyadiisana marka abu cabdillaahi baa la yidhahdaa odayga kunyadiisana abu cabdillaahi baa la yidhahdaa wiilka maxamed baa la yidhahdaa odaygana maxamed baa la yidhahdaa abi cabdillaahi cabdillaahi aabihiisa ahaa cabdillaahigii ibna cabdillaahi ina cabdullaahi ahaa cabdullaahigii ibni maalikin ina maalig ahaa raximahullaahu ilaahay ha u naxariista raxima ha u naxariisto hu badruddiin allahu allah ha u naxariisto cidda loo ducaynaya hadda waa badruddiinoo xertiisii baa laga yaabaa intay muqadimada inay sameeyeen wa raxima allah u naxariista salafahu usuushii hore uu ka soo jeedayna allah ha u naxariisto sheekh ayagu markuu ka hadli jiray ashaykh iyo alimaam iyo alcallaamatu kurtigood mid buu u tacriifin jiray uga hadli jiray laakiin waqtigoo inugu yar iyo kuwaan tacriifintoodoon hadda calaaqa la lahayn sarfiga waa iska daynayna keliya waxaan ku gaabsanaynaa sheekha waa sheegnay xataa tarjumadiisa shalay baan wax ka ishaarnay inuu 600 oo hijrigii iyo dhashay 672 marka ahaydna uu dhintay musanafaadkiisa waxbaan ka ishaarnay inuu qiraa'aadka iyo luqada iyo caan ku ah waxbaan ka ishaarnay maqsuudka kitaabka ayaan marka isku daynaa insha Allah taala aan ku yatoono laakiin sheekh maxaa la yiraahdaa eray bixinta alfaada noocaas ah waa baab kale oo luqa ah هذه تاني أوراق صدح معنا لغو معنية أوراق أي أبيات وأبيات وحل إشارة يعني ومدان صوصعته ومعناها مقدمة كتابك إيوه وحويان كتابك وحا هريي مقدمة هريسي معناها محل غوضة انت عندن بيتو رحمه الله ورحم سلفه هذه بقولك وحكا كبلاب انت أرددي سأسكالها هيد هذه تاني أوراق أي أبيات وأبيات أوراق أوزان وأوزان وزنوي أوراق وأوراق حاشية إيا وراق صدق ذا والأوران كره انت والأوران كره هذه ثاني أوراق وحاشية أوراق أبيات وأبيات أوراق أي أوزان وأوزان أوزان تاسو تشتمل قرآن سنيسة على قصيدة والدي والدكي قصيدتي iyo gabaygi tixdi u tiriyay ama ala qasiidati walidi ay maqsuudati walidi walidkiisi loo qasdayo uu u dan laha rahimahullahu ilaahi ha u naxariisto aabahay waxyaalo wiilkan waa ku fiican yahay mar aabihiis gabaygiisi buu sharxaya amalkii aabihi uu qabtay buu rabaa inuu sii sharxo umada sii gaarsiiyo marna waa wiil baariho aabihi u ducaynayo aabahay baa sida yiri kaliya ma ahna ducu ku daba wada taasoo ku saabsan fi abniyati al-af'aali af'aasha abniyadeeda iyo dhismaheeda waa sheegnayo
أفعال كلية كهل ما هي أسمان وكهل لكن أفعاش هو من باب التغليب هنا أيضا هذا أصوه الرئيسة قصيدة سو في أبنية الأفعال أفعاش أبنية دي قصافا يوما شيء يتصل لحريرة بها أبنية داس بها أبنية داس وحي أبنية لحريرة انتاسي خلاصة هذه أوراق تشتمل على قصيدة والدي رحمه الله تعالى في أبنية الأفعال يوما أي الذي كي يتصل لحريرة بها أيضا وعلى ذكر ما شيغتانكي سي حسيتانكي يحتاج لو باهيه إليه أسغا ومن الأمثلة تصاريال وwaxaan arki doonaa markaan gabayga iyo dhumucda kitaabka u tagno amthilo bixin doona beyti markuu sheego amthilo u sameynaya iyo tusaalayaal ayuu u sameynaya iyo wa idaahi ma shay cadayntiisa istabahama ay istaqlaqa xirmay oo qarsoonaado dahsoonaaday erayaal laga yaabo inay xoogaa qarsoomeen oo yara adkaadeen baan rabaa inaan idaahiyo daha ka qaado iyo wa tafsiiri al-gharibi shayga qariibka ah xoogaa adkaantu ku jirto inaan fasiro tafsiirintiisa iyo cadayntiisa tafsiirkii idaahi waa isku mid in la waadixiyo oo la cadeeyo wallahu alle subhanahu nazahnayo wa ta'ala sirriye asaga al-muwaffiq midka qofka khayrka doonaya khayrka waafajiya asaga dadka wax waafajiya in ilaahay fahamkeeda uu ku waafajiyo oo xifdinteeda ilaahay ku waafajiyo oo gadgadinteeda ilaahay uu ku xifdiyo oo ku sabarkeeda ilaahay uu ku xifdiyo oo ku waafajiyo kullu dhalika biyadi ilaahay ku jirta asbaabtan adaa laga raba marka wiilku wuxuu ka bilowday hadalkiisu hadhihi awraaq halkaas hadalkiisu ka bilaabanaya wuxuuna rabaa inuu sheego yiraahdo wixii adkaaday baan rabaa inaan faahfaahiyo aabahay qasiidadiisa kamid ah aabahay marka qaala aabahay wuxuu yiri alhamdulillahi la adghi bihi badala بحر البسيط بحر الإرادة كسر ده وحلا قاضية الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبالغ من رضوانه الأمل قال لا أبغي به بدلا حمدا يبالغ من رضوانه الأمل ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء والصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحرز من اللغة الأبواب والسبل فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل قال مرك ابن مالك وحير الحمد مهد لله الله يؤصغناتي الحمد مهدي لله الله يؤصغنات لا أبغي حال أنا الدلبين به إله سبحانه وتعالى أمانت أن أمانة يبدلا وحبدل يعوض كغمرب ومعنى كم إذا معاني لغو فسره سيدو صاحب مناهل الرجال مري لا أبغي به بدلا أمانت أن إلهي أمانة وحعوض يبدل كغمرب أدون لماذا إذا كلي إلهي باي أدون صدي أدون بانوهي وحنو أمانية أدون لماذا إن أنوه كان سموه كريح الحمد ماذي لله الله يؤصغنات لا أبغي حالا أنا الدلبين به أمانتاس إلهي أن أمانيه بدلا وح بدل يعوض أما لا أبغي حالا أنا الدلبين به أي عنه حقيس بدلا وح شريكه إلهي سبحانه وتعالى روح شريك لا وأمانة لو وداغا ما أضلبيه حمدا مهدنا يا الله أصغناطي حمدغاسو يبلغ غارسيه من رضوانه إلهي رالي أهانشيس حقيس حالو كهادي الأمل يديلدا iyo qofku waxa weeyaan jirinayo oo raajicinayo حمدا
وكر ديغانته هو مصدر waxaa kor dhigay laba waxyaalood midkood masdarka hadalku uu ka bilowday beedku alxamdudaas kale taa kor dhigtay masdar nasbiyaan oo luqada carabiga waa sax marka alxamdudaanu inay nasbisay waa sax waxa labaadoo suurtowda inay xamdan ku nasbisantahay oo ku kor dhigan tahay ficil meesha ka go'an oo loo soo qadarayo ahmaduhu ilaahi waan mahadinayaa xamdan mahad xamdigaasoo yuballigu gaarsiiya min ridwaanihi ilaahi raalli ahaanshiisa xaggiisa xalu ka ahaaday al-amala ididiilo qofku wuxuu raajicinayo rajaynayo iyo ididiilada uu leeyahay ayuu ku gaaraya kitaabkii marka musannif wuxuu ku bilaaba ilaahi mahadintiisa subhanahu wa ta'ala alhamdulillah mahadinta ilaahi buu ku bilaabanaya nabigana dhaqan u lahaa sallallahu alayhi wasallam basmalada iyo waxa weeye xamdalada iyo inuu ku bilowdo ama rasaa'ilka ama waxa weeye khudabkiisa alhamdu lillahi allah yusugnaat la abghi hala ana dalbayni bihi إلهي سبحانه وتعالى بدلا بدءا كبدشه أما أنت أنا بدل كجربي حمدا ما هدين بقى الله أصغناطي يا أمان حمد جاسو يبلغ جارسية من رضوانه إلهي رالي أهانشيس حق ذي حلوك هذا الأمل يديله ثم الصلاة ثم وحرف قطصينية ترتيب يتراخي لكن معنى الجوني وأسوي جوني وتاجن ماله سدا أوجد بوحى حرف كما كلا تعرفين يلو تعرفيها كلمة دلت على معنى في غيرها وكلمة معنى كتسته عد كلينا معنى كاتسته معنى مستغل وجوني ما كما يلانيس سيدا أوجد إن جوني الله لقمية ثم أنت كبعد سيقة يشرب دول وديرج وحورينش لقفك ثم أنت كبعد يراهدو أنت معناه من بعدنا وينو كلام معناه ومن أنتو جونو معناه بعدنا معناه من السرتوبيش معلن كل شيء يشرو من دون الله وحريرية ومنكم كل جوي وذكرتين نقول مركز مركز ثم الصلاة إسراعي معنى هذا واصح وإنت كبعد بيكون سنة لكن معنى الجوني أيضا وتلما أركيه أيضا الصلاة يسكن معنى واحد هذا ثم الصلاة ثم الصلاة نحريس على خير الوراء مخلوق كي وخير كبنا دوشي سهاكو سجنا ثم الصلاة نحريس وليب وينين للا خيرين أيه فحالي الرحمة وحويان المقترنة بالتعظيم صلاة وحوي ورحمة وليبا المقرونة للحريرية بالتعظيم إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد هؤلاء حريست ها أمانه على خير الوراء ومخلوق خلقك روح وخير كبنا دوشيس وعلى ساداتنا سيدي الكيني دوش وضنا أيضا ها أهاتو صلاة ويهين سيدي الكينو آله نبي إهل كيساء صلى الله عليه وسلم وصحبه نبي أصحابتي سيء رضوان الله عليهم صحابتي الفضلاء فضل قبضني الفضلاء أيوة وحا الفضلاء وحا هذا همزة اللغة شرعي قافية لا إلالينا لأن كتابك وحا لامية صماهي لا ذا صلى الروايين لا إلاليه همزة مركة الفضلاء قدام بيسي سيدا سألوكوي ساداتنا سيديال كينا دوش واضح أمان إيا نحريس دوش واضح كسونا تآله نبي إهل كيساء يوصحبه صحابديسة الفضلاء فضل قبضنا وفضل يوانا قلها مركو إلهي أماني ووحو أسو قدبي إنه النبي قصلي صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة هو اسم مصدر ما هو اسم مصدر أصلك وحال الربي صلى إن مصدر كالغو كانت تصلية لكن قرآن كما وحال أركي تصلية والله استعمال يدك أهل النار تصلية الجحيم صوما تجحيم قليا مركة تدكي جحيم قليا وحي الله استعمالي النبي محمد مركة الغو صلي يعني الله استعماله العلماء وحي ولا كلا دواليو نبي كيسا الصلاة بالي هذا وحاوي واسم مصدر وتصلية الجحيم وقالوا قوني إلى مركز نبي جيبوا مركز أيمن صلى الله عليه وسلم إلهي أمان تيسه وكم ذيها خلق وطن خلق لكن هذه الأمانة رد أنه قمدني والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة على خير الورى إنه مخلوق النبي محمد وهو خير بدنيا هين علماء المسلمين تبضن قلاء طبعا علماء قيبة كم إذا نوحي إليه الملائكة قيبة كم إذا كفي عنه كفل لبضن ومثلا خلافية مركز بقى كتاب كان هذا مقصيص على خير الورى وعلى ساداتنا سيديالك ندوش هذا ها أهات أيضنا نحريس ويهين آله النبي إهل كيسا صلى الله عليه وسلم ومد النبي قلن بأهل بيتك أهل خيرك والنبي وليه وحوي الله يوصالح المؤمنين ذاتك مؤمنين تقوى صوصوب الحديث وكوشة صلى الله عليه وسلم مركا
ahlu khayrkii ummadda wanaagsan oo nabi maxamed oo ahlu beydki sifa khaas haddii loo hadlahayo abwaabu zaka laga hadlahayana ahlu beydka nabiga sallallahu alayhi wasallam dad gooniya loo yaqaan wa saxbihi waa ciddii nabiga aragtay sallallahu alayhi wasallam oo la kulantay ciddii nabiga la kulantay rumaysay sidaasna ku dhimatay waliyaa waxay yiraahdaan dhulkana ku aragtay dhulka waa inay sicirka ku arag waayo haddaad tiraahdo ciddii nabiga aragtoo la kulantay hameenkii nabigu la dheelmay malaa'ig badan buu wuxuu ku sii arkay kor ambiyo badan buu kor ku tujiyey tacriifkaaga marka waxaa ka dhalanaysa nabi ibraahim inuu saxaabi yahay ana nabigu arkay nabiyadiisana waa rumaysnaa calayhi salaam nabi aadan inuu saxaabi yahay malku jibriil inuu saxaabi yahay xagga kore isku arkay marka man laqiya nabiy sallallahu alayhi wasallam wa aamana bihi wa mata ala dhalika lakin meeshu ay tahay fil ardi qolaha fil ardi wa ba'du inta ka gadaal intee بعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مركي النبي إلهي لصواء معني نبي محمد الوسلي صلى الله عليه وسلم انت كبعد فصل الخطاب وي فالفعل فعلك من روحي يحكم صبح تصرفه قدون كيس يحز كوبه من اللغة حق هذا حالو كهذا الأبواب إخدها يوصب لودوين كاللومر meesha waxaa jirta wax la yiraahdo baraacatul istihlaal mutaakhiriinta oo isticmaala baraacatul istihlaal laakiin ragii mutaqaddimiinta waxay oran jireen husnul ibtidaa markaad wax bilaabanaysid bilaabashadii inaad hagaajisid oo mawduuca aad ka hadlaysid wax ku tusinaya aad isticmaasho hordhac مثلا qof wuxuu ka hadlayaa geeri alxamdulillahi alladhi جعل لكل شيء أجلا أنت غفك مكيو حسلا وركنا ما أنت غفك أنتو قهوة دمشق حنبا لقى فهم هذا الكلام كامر كوحي يقانا براعة الاستهلال استهلال كأسل كي سوحا وي قرح له مركز الله استهلالك مركز بشر الله ينسى كوضع بشر مركز الله ينسى براعة الاستهلال مركز براعة الاستهلال لو وحي يقانا أن يذكر المصنف مصنفك مؤلفك وحقورية شاعرك قبل تيرين إنو شيغو ما يدل وحكة تصينية على مقصود الكتاب كتاب كان مقصود وكسر سنية هي وح لغة لدلية أو لغة الله وحكة تصينية إنه مصنف إشارة مقدمة درك الشيء أن يذكر في أول الكتاب وحكة شيء ما يدل وحكة تصينية وكدرسينية على مقصود الكتاب كتاب مقصود كسي وشيء لغني باب هذا كذا نصرف بها وبعد فالفعل من يحكم تصرفه إرجع سؤالك سامك تصرف وبراعة الاستهلال وحي كتسنيسا waxa uu soo waday inay sarfi tahay waxa jirta wax la yiraahdo baraacatul madlab baraacatul istihlalka husnul ibtidaa waa la yiraahdaa baan oo mutaqaddimiintu isticmaali jireen baraacatul madlab waxa weeye waa tii hore qaybta hore kala mid ah an yudkara fi awwal alkitab kitabka awwalkiisa inaad ku sheegtid oo qofku uu ku sheego ma yadullu ala madh alkitab kitabka amaantiisa wax ku tusinaya wax kitabka amaantiisa iyo فاهمت كتسنا يا كتاب أول كيس كل شيء أيضا هو شيء دونا واحد شرا واحد يا براعة الاختتام كبجبين هذا الكائن سوق كبجبين سين للدريمي صومالي هذا القوى استعماله فرع يا هذا الكوبعديسي يجبجبين تي هذا الكلا صاحرة وليه صدق القوى استعماله ولا ده مال ملك خطبي وضيب إله نشوف مركوب حين كان وين لقبته في خبل وين لوشة سان محاك ربته كاسير صدق هذه الطيبات وضيب إسك عادي وضيب رقمات waxaan qaadanay hadalku inuu leeyahay waqdac iyo ubuucdi hadalka iyo gabagabeynta wixii dhan isku mid anaga nooga dhigay adiga waxaan samaystay faraha ka qaado maxaa lagu shubay quraan kaliya noo akhriyo inuu hebel quraan yahay u malaynayaa oo maxaa ka wada quraan kaliya hadii lagu waaniyay laazim mar walba ahadiis in lagu soo daliishado marka bara'atu al-ikhtitam waxa la yiraahdaa an yadhkura inuu musannifku sheego ama qofku uu sheego fi aakhir al-kitab kitabka gabagabadiisa ما يدل على الاختتام كتاب كينو قبقبوبة يوحكو تسيني صدح له مصنف هو استعمالي دونا براعة الاستهلال كوه الرئيسة وبعد انتها كقضى الفال فعل فعلك من روح يحكم سوا تصرفه قد قدون كيسة يحز كوبي غفكا سوح كوبية من اللغة حقيقة الأبواب الباب دي أيو كوبية يوصبلا ودوين كيلومر لها مرهداد وددي قاطي البابكي guriga aad taagan tahay gelitaankiisa marka waa ku sahraanaya marka labadiba uu hayo qofkaas qofkii laakiin gadgadoonka ficilka aan garanay maxaa laga wadaa daraba waa maadi yadribu waa mudaari yadrib waa amar darban waa masdar
ضارب واسم فاعل مضروب واسم مفعول قفك انت ان garanaynin waxa gacan kuma hayo wax badan ba ka halaysan laakiin qofkii gadgadoonka ficilka sidaas oo kala u garanaya yaxuz min al-lughati al-abwaab wa subala wax badan ba gacanta ugu jira marka qofkaasi fahaaka qaado waqaybti labada baraacatul madlab wuxuu rabaa inuu kitaabki amaanta kitaabka wax ku tusinahay kitaabada qaar baan waxaan ku arkay waxay qoreen sida kitaabka Abu Bakar Maalin oo kale amaanta kitaabkan waxa kamid ah kitaabun fihi ma fihi malihun fi macaanihi man lam ya'rif ma fihi balal kalbu fihi wa xogaa waxaan isiri qaybta sayida ma mujazafaad ba ku jira ka badbadin kitaabkan qofka aan garan waxa ku dhex jira ay afka kaga kaajo quraanka ilaahay qofkii aan aqoon iska muslima faatixada kaliya ku tukada oo la oran karo afkaaga ay ba ku kaajay laamiyatul af'aal qofkii aan baran waxa ay ba afka kaga kaajay warawsha loo fiirsado bal laga warqabo fahaaka qaado nadman ay manduuman tix mid la tixay nadmigaasoo muhiitan koobaya bil muhimmi waxyaalaha muhiimka koobaya waqad yaxwi waxa kooba at-tafaasiil tafaasiil al-kalaam hadalka faafahintiisa iyo kala dhigdhinaanshihiisa waxa kooba man ruuxi yastaxdiru soo xaadirsanayo kulansanaya al-jumla jumlooyin badan qofkii gacanta ku haya faafahinta iyo tafaasiisha iyo mufradaadkana markaas koobi kara wa baraacatul matlabki meesha lahayno wuxuu hadda isticmaalay waxa ku tusinaya kitaabkan amaantiisa oo muxuu yiri fahaaka qaado nadman tix gabay oo la taxay taasoo muhiitan bil muhim waxyaalihi muhiimka ay dhanbu ku koobiga muhiit ahaata laga keenay ficilka ahaata rubaaci ismigi faacil marka muxuu ku imanay muhiit waa ism faacil ahaata waa maadi yuhiit waa mudaarici amar hadaa rabtina ka keentay ahid koob baad marka muhiitan mid koobaya bil muhim waxyaalaha muhiimka ah oo dhanbu ku koobaya marka kitaabkiibu amaano waa nadmi horta maaha nasri waa gabay tix gabay way koow waxyaalihi muhiimka ah oo asaasiyaadkaana waa ku koobiya sarfi ku saabsana waqad yaxwi waxa kooba at-tafaasiila tafaasiil al-kalaam hadalka faafahintiisa iyo eray bixintiisa iyo mufradaadkiisa iyo waxa kooba man ruuxi yastaxdiru kulansanaya al-jumla jumlooyin badan iyo sida loo isticmaalo qofka garanaya tafannun marka waa sameyn kara waa ku foofi kara wixii meesha yaalay markaasuu kelmadii iclaalinaya waa turxaan bixinaya hadafku garanaya ziyaadadu garanaya inay asaala tahay in kala garanaya inay saxiix tahay inay saqiintu kala garanaya kelmadan marubaaciya mismaahu kala garanaya wax badan buu kala garanaya qofkii marka jumlooyin badan haysta usuusha qofkii koo maxay oran jireen ya usuusha qofkii garta ruuxdan waa koobaya Soomaa marka jumlooyin badan waa inaad haysatay jumlooyin badan sidii lagu ogaan lahaa asaga soo wado hadda wuxuu ku amaana kitaabkiyo tixdan gabayga qofkii kooba wax badan buu gacanta ku dhigayaa marka insha Allah taala inta hadda la soo xifdiyo kitaabku maaquu ka koobnaa 114 bayt Soomaa afarta hadda waa dhamaatay saanayba ku dhamaatay soona baa 29 bari ba ka hashay maqashninkii hal maalin inta soomay kitaabkii dhamaayo 114 bayt la badinahay kow afar baa maanta sidaa ku tagtay maxaa soo haray 110 bayt soo hartay bas 110 ka bayt marka ha loo gudtado intaana la soo xifdiyo insha Allah taala waa iska muqaddima intaanu wax badan oo culimadu meeshan muqaddimada ay ku sharxaana ama qusayso waxaana shala sheegnay waxaan u dhaqmaynaa sidii socod baradki istaadihina daadah baan hadda islaam insha Allah taala marka sulbiga kitaabkan wixii ka dambeeya asbuuca dambe guda galayna insha Allah taala sulbiga kitaab oo maqsuudkii ah oo ah afcaasha laga hadlayo وبعد فالفعل صماه فعل كبا laga hadlayo waliba qayb mujarrad ka hadlay mujarradka markaas aan sheegi doona waana abwaabta ugu nacfiga badan kitaabku kamid abwaabtaas xogaa laakiin waa yaraan oo noqotay ninkii ku sabri waayay guuldarra uu ka raacay ninkii laakiin ku sabra ku cilashada oo dhageysta oo cid kala kaalmaysta oo maalmo isaga sabra maalinka dambe wax badan buu ka fahmay wax badan oo kala baxayaan wallahu a'lam sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi